banaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta labada gole ee dawladda ku meel gaarka ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo sheegay in maanta ay ka duwan tahay sidii ay ahayd Muqdisho sanad ka hor maanta waa nooga duwan tahay maalmihii kale halkaan la sugnaynaan karin ummaddu isma dhex geli karin ummaddu ma shaqaysan karin oo dukaamada kama shaqaysan karin habeenkii suuqyada ma furnayn waxaasoo dhan waxay cabsi ay abuureen argagixisada caalamiga ah ee dhanka Soomaaliya oo hogaaminaya nin aan la arkin siduu nafta u jecel yahay shuku ku socdaa shuka dhar haween buu ku socdaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda ku meel gaarka Cabdisamed Macalin Maxamuud oo hadal kooban ka jeediyay goobta uu banaanbaxu ka dhacayay ayaa hay'adaha samafalka u jeediyay baaq ku aadan in goobaha lagala wareegay ururka al-shabaab la gaarsiiyo gargaar bani'aadminimo hay'adaha samafalka meelaha la xoreeyay oo laga xoreeyay cadawga laga xoreeyay waxa loo baahan yahay in la gaarsiiyo raashin degdeg ah in la gaarsiiyo arrin degdeg ah soo kordhay way waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha samafalka kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dalka dibadiisa joogaba in meelaha cadawga laga saaray loogu tagay waxyaabo aan laga hadli karin waxyaabo bini'aadnimada ka soo horjeeda dhibaato aad iyo aad u ballaaran oo fara badan oo qof kasta arkaayo calooshu xanuunayso waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u gaarsiiyaan sidoo kale wasiirka gaashaandhigga dawladda ku meel gaarka Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in dawladdu ballan qaadayso inaanu mar dambe al-shabaab magaalada Muqdisho dib ugu soo laaban waxaana uu shacabka Muqdisho ka codsaday in arrintaasi ay dawladda gacan ku siiyaan shacabka Soomaaliyeed oo wada shaqeynaya ayaa goostay inay al-shabaab mar dambe Muqdisho ku soo noqonin tii waxay bilowday markaa inay shacabku aaminaan in dadka iyo shacabka iyo ciidamadu wada shaqeyn karaan nabadna la keeni karo Muqdisho la iskana celin karo cadawga al-shabaab ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa 6 August ku tilmaamay maalin qiimo gaar ah u leh shacabka oo aan la iloobi karin waxaana dhinaca kale uu soo hadal qaaday in guulaha la gaaray aanay ku koobnayn kuwa amniga oo qura balse sidoo kale la gaaray guulo siyaasadeed maanta waa maalin weyn waa maalintii nabadda waa maalintii cadawga ummadda Soomaaliyeed oo jabay waa maalintii shacabka Soomaaliyeed ay xaqiiqsadeen inay ka adkaa karaan al-qaacida iyo al-shabaab ilaaha ku maatan subhanahu wa ta'ala guushaas nasiiyay lagu ilhaamiyay inana ilaaha ku maatan subhanahu wa ta'ala guulaha la gaaray kaliya ma aha kuwa amni ee waxa la gaaray kuwa siyaasadeed inaan maanta u diyaar garoobeyno doorashooyin xor ah oo ka dhaca magaalada Muqdisho 42 sano kadib Soomaaliya waxay tahay guul in aan dastuurkeena ansixino waxay noo tahay guul waa ku mahadsan yihiin ergadii ansixinta dastuurka waa ku mahadsan yihiin odayaashii ama dowladkii dhaqanka 135 waa ku mahadsan yihiin shaqada fiican ay qabteen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho